iyadoo ay ahayd maalintii ugu dambeysay ololaha uu lahaa xisbiga xaakinka talada haya kulmiye ayaa saaka musharaxiinta isku sidkan ee kala ah Cabdi Jaaqur iyo sidoo kale Maxamed Blaaki waxay saaka cududooda taageero ku soo bandhigeen taageerayaashan ay ku leeyihiin magaalada Burco taageerayaashan oo wata astaanta labada musharax iyo sidoo calanka xisbiga xaakinka kulmiye adiid kala duwan ku soo maray jidadka waaweyn ee magaalada Burco kuwaas oo ku dhawaaqay ay ka mid yihiin codkayga waxaanu siinaynaa labadan musharax ugu dambeyntiina taageerayaashan ayaa isugu soo biyashubtay garoonka Bayle xaafadda October waxaana halkaas kala hadlay labada musharax oo ka codsaday taageerayaashan inay codkooda ugu deeqaan marka la gaaro 31 May isla markaana u sheegay astaantooda oo ay sheegeen inay tahay gudin iyo sidoo kale 204 si aad guula buuxiyo nimca iyo baraariyo u gaadhaan barwaaqada aan idin bayaashay haw eegin beel iyo bahdareerihiin xildhibaan Blaaki iyo Jaaqur ku doono bulshooysi codkaaga astaantooda beegsada warmeenu laawayna gudinta weenu laawayna 204 inta salabadaan maaha halkaas ila maanta taagnay oo ahayd maalintii 27 May ahayd maalintii madaxweynuhu nagu marayay gobolkeennii maalintaas oo ahayd maalintii lagu soo gulaanadayay muxuu ahaa kaambeykii dheeraa isu soo baxyadii xisbiga kulmiye sida hagarmaanta ay u soo jeedeen xalay sida saaka noo garab taagnaydeen ilaa iyo maanta madaxda u taagantihiin waxay noqon doontaa burmado bar ku taalla haddii la yidhaahdo wadnahayaga iyo qalbigaygaana weligay ilaawn waxay noo muujiseen inaanu nahay dad shacab leh oo la garab taagan yahay haween dhalinyaro odayaal waayeel aqoon-yahan cuqaal salaadiin aad baanu idinka mahadnaqaynaa waxay noo hadhay maalintii 31 May sidaa isu taagteen sidaa hayganka u tihiin sidaa isu wada degteen sidaa noo garab taagan tihiin magac iyo maamuus ayaa idinku jira idinka yaa annagaba inaynu meeshii aynu dhaqaaqnaynu ka soo baxno ka muuqanno kuwa ugu codka badan la noqonno insha allah codkiinu yuu baaqanin qofowna ha hadhin qofkii meel ku jira qof waliba wuxuu mas-uul ka yahay dadka wixii uu ku xidhan yahay inuu maalintaa codka keeno waxaa ballanteennu waxa weeye 31 May insha allahu soo sidaa ma aha waxaynu ka mid nahay kuraasida eeda insha allahu in la filayo inay gobolka togdheer ka soo baxaan allahu akbar Somaliland ha noolaato kulmiye ha noolaado kulmiye ha guulaysto waa maalin aad u weyn oo qiimo iyo qaayo kule ummadda reer Somaliland waa maalinteenu magaalada soo galnay ee mujaahidiinteennii sharafta lahaa ee uu maanta ka nool yahay Axmed Mire iyo Maxamed Kaahin ay ku dhaawacmeen waa maalin weyn waa maalin aad u qiimo badan waa inaanu maalinta ilaawinaanu xasuusanaa waa inaynu xasuusanaa mujaahidiinteennii horta ilaaba mahadlo waa idin mahad celinayna haddaydan idinka taageeradiina maalin aydan muujin taageeradiina aydan nala garab istaagin maynu soo gaarnin maanta meeshaanu taagannahay aniga xildhibaan Cabdi Ibraahim Jaaqur iminka saadaashu waxaynu leeyihiin number A baa tihiin ilaahay ka dhigo ilaahay number A-da naloo saadilay Allah ka dhigo saadaashaasina waxay ku timid idinkaydu ku timid taageerada noo muujiseen sida isku abaabusheen shaqooyinka nala shaqayseen garabka nala garab istaagteen intaasay ku timid 31 May ha ilaawina maalinta 31 ha ilaawina walaalayaal waxaan idin leenahay saddex casho noo arsan والمالنتا عدودنا نتفتين مانتا لابا عدودنا لابا وحيدا كلو إلا وينين هذا النمبر كان قلبي وخوخورتا 204 هاي لاوينا 204 هاي لاوينا قدنتنا هاي لاوينا لابا قلبي وخوخورتا نوح محمد عبدي تلفزيون كبدعس برعو